waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa socdaal ay ku weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada waxa ay ku gaala bixiyeen deegaano ka tirsan galbeedka gobolka Maroodijeex sida Daboola, Dacarta, Garyogol, Guulala iyo Faraweyne iyadoo socdaalkan wasiirku uu salka ku hayay sidii ay xariga uga jari lahayd mashaariic horumarneed oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay jiidahaasi xaflado kala duwan oo loo qabtay dhamaystirka mashaariicda waxbarasho ayaa Marwo Samsom Cabdi Aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxa ay xariga kaga jartay ilaa 7 dugsi waxbarasho oo cusub oo laga hirgeliyay jiidaha degmada Faraweyne gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo gudoomiyaha degmada Faraweyne ayaa munaasabadaasi hadal ka jeediyay ka hor wasiir ku soo dhawow deegaanka degmada Faraweyne iyo iskuulka ka dhistay halkan la yiraahdo Shimbiraale wasiir iyo dadaalka badan sameysay baan saaka kugu soo dhaweynaynaa degmada Faraweyne tiyoodka lahaada dheer iyo dadaalka fara badan degmada Faraweyne mid ay og tahay dalka oo dhan ad ka wado dadaalka fara badan iyo degmada wixii uu kordhay inta saacad wasiirka ahayd iskuulo badan baa ka hirgalay macallimiin badan baa gurnaysmay gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwo Samsom Cabdi Aadan ayaa hadal kooban oo ay ka jeedisay xafladda xarig jarista waxa ay kaga hadashay dadaalka xukuumadda Soomaaliland ee la xiriira horumarinta waxbarashada iyadoo dadweynaha jiidahaasi ku dardaartay in ay xil iska saaraan daryeelka iyo dhowridda dhismayaashaasi inaynu maanta joogno tuulada Shimbiraale ee ku taala degmada Faraweyne aynu dugsigii u horeeyay ee ka dhismay aynu maanta xariga ka jarayno waa Ilaahay mahadi iskuulkan wuxuu hor socdaa horumar buu hor socdaa maanta marka iskuul laga furo caafimaadkii baa ku xigaya waxyaabihii kale dawladdu u qabanaysaa ku xigay wadadii baa ku xigaysa marka iskuulka hadhayalsanina iskuulkaas laakiin wuxuu hormood u noqonayaa horumar marka arday dhigato haddaanay arday dhigmin uu noqdo ardayaanay dhigan uu noqdo mid xoolaha lagu xareeyo horumar kalena iman maayo intaasi kadibna wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo mas'uuliyiinta wehelisa waxa ay dhagax dhigeen ceel biyo laga hirgelinayo degmadaasi Faraweyne kaasi oo loogu talagalay in dadweynaha deegaankaasi ku dhaqan iyo waliba xooluhuba ay ka helaan biyo ku filan